سورة الفيل مرودي سورة لغو مقعابي مكية المكي كسود دكتي وآيات هذين 5 آيات 5 آيات وي وحانو هالكان كجلينا سورة دي بقول يا شنات أيانو ميشان كجلينا سورة دي ميشان كجلينا وحالي سورة الفيل أيا ليلة قصة الفيل أيا لغا ورحمة دونا مرودي مركاسي وحاوي نينكي لديه جري أبرها وكل الدولي كعبدا وقت النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وجود كون كان وكانيو نبي على شديس هذي تاريخ آدي هذا الدير وايو كتب السيرة لقى أخريو أود إلهي سبحانه وتعالى يا الله يستصايا هي ضدك مركز متكبرين تا إن مروا البخ صار يوضم بيهيسو أو أي هوج دونان تاسي وعوي إن يكون عبرقاتان اللي دونايو وحيابيه مركز واجا صنعي يا حرمك إلهي حرمة أوليه يا إلهي سبحانه وتعالى إنه حرم كيس الدفاع عايو أو حتى من وحكة اللي هو وايو إلهي سبحانه وتعالى والدفاع عايو خطاب كان رسولك عليه الصلاة والسلام رؤيا ذا أنه حوي وعلمية واي إيه بصرية معها معايا لو وقت كاس أو حوي فيل كاس أو سوى رأي ماشي أو الجو رأي رسول كان عليه الصلاة والسلام مركز سوى حوي هذا تاريخ هل يراد عام الفيل ولا شيء هل يرادوا waxaa dhici karta inay wax yar ay ka horeysay dhalashadiisa maalmo ama bila ay ka horeysay ama markaas waxa waaye oo ahay waxa ilmo yar uu ahay markaas oo dhabta lagu hayo amal uu ahay markaas ru'yadan waxay noqonaysaa cilmiye noqonaysaa istifhaamtana waxa weeye alam tara ilaahi wali istifhaam ta'jiib wa taqriir waaye marka Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim alam tara soo arkimaysid lama yaabaysid كيف سيدا فعل ربك أو كفلي بأصحاب الفيل مرودي أصحاب تيسي وها أو كفل إلهي وحوله سبحانه وتعالى ألم يجعل سوء لما يلنو إلهي كيدهم دقرتو دي أي ربيان كعبضين يكدوا ميان في تضليل خسارة سوء إلهي ميلين وأرسل الله سوء مدر عليهم كركوضة دائرا شنبروا إلهي أبابيل أو جماعات أو كوحة دايرتا سو ترميهم كوغنيسه بحجاره دكحان او من سجين دوبل الدب حقيدا فجعلهم الله سو كما يلين كعصف بل او كله ماكول او لا عني لا يقول سبحانه وتعالى الم ترى بل سو اركم يسول له كيف سيدا فعل ربك او كفلوا الهي باصحاب الفيل مرودي اصحاب تيس وهذا اللي قد هدلايا nimanka kufaarta oo awood sheeganaya oo nabiga kaleey salaam ka soo horjeeda ee wax ka san sameeyayna wax ka san awoodna wax ka san dilayna dhahaya ayaa waxa la tusaya asxaabul fiil nimankii ahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu halaagay kayfa fa'ala rabbiga sidoo ku bi asxaabil fiil marodiga asxaabtiis fiilkan waxa uu ahay midka hogaanka ah waxa la dhihi jiray Maxmuud iyo asxaabtiisa la dhihi jiray ومد كفديسي او markaasi waxa weeye madaxiisa ay garaaceen dadku waxa markaasi la socday 12 maroodiya la socday cadadkooda hadda lama oga 18 waa la sheegay kun waa la sheegay fiilka hadda waa la ifraadiyaa leeri ruusul aaya la waafajinay weeye ama waxa weeye midkaas ayaa sabab ugu noqday markaasi oo Maxmuud la yiraahdo oo maroodiyaasha hogaankooda ahay kaas ayaa sabab ugu noqday in markaasi wax la kharibo ama ayagi markaasi ilaahi subhanahu wa ta'ala uu laayo kaas uu sabab markaas loo ifraada leeyahay kayfa sida facala rabbiga oo ku falay bi asxaabil fiil marodiga asxaabtiis waa ninki abrahay iyo rag oo ka watay oo markaasi ahay markaas malikul yaman ahay laakiin yaman asagu barasaabo ka ahay ama waali ayuu ka ahay ninkaanu xagga markaasi waxa waaye boqorkii markaasi waxa weeye Itoobiya markaas haystay marka abrahaanu markaasi yaman ayuu haystay iyo dhul badan oo haystayo arlada tan Afrikana maartay Itoobiya ay kamid tahay ninka marka waxa abraha la yiraahdo magaciisa Ashram ayaa la dhihi jiray zaas la dhihi jiray malikul yaman ayuu ahaa yiri xagga boqorkii la dhihi jiray Najaashi ayuu markaas meeshaas oo malik uga ahayo oo malikul Habasha ninkaas oo barasa meesha wahay ciidanka markaas oo watay abraha waxa ahay 60 kun ayuu ahay baali ilaaha ku cilmi leh arintan marka waxa weeye in abraha uu ku duulo Kacbada maxaa sababay
ninkaan marka waxa weeye abraan nin masiixi oo ahay malikul xabashana sidaas oo ahay marka waxa la sheegay dadka waagaas jaahiliyadii waxay aadi jireen kacbada ay aadi jireen oo waa xiji jireen dadku wiligoorba jaahiliyadii xataa marka ninkaan waxa weeye magaalada Sanca ayuu wuxuu ka dhisay kaniisada uu ka dhisay asagoo doonaya dadkan carabta ah oo markaasi madaxda u yahay gumaysiga ku haysto inuu kaniisada tan uu ku jeediyo oo Makka oo xaramka Ilaahay uu ka jeediyo arintaas asagoo doonaya ayaa waxa weeye magaalada Sanca wuxuu ka dhisay kaniisad weyn ayuu ka dhisay oo markaasi dadka uga dhigayo siday mawsimul xajka ay u baxayaan inay halkaan ay ka dhigtaan nimankan markaasi waxa weeye kufaarta oo waxa weeye saliibiyiinta ama waxa weeye masiixiyiinta weligoodba waxa weeye dadkan maartay kacbada iyo xaramka Ilaahay ku xiran mar walba waa ka soo horjeedeen mar walba waxay noolay jireen ee kaniisadaasay noolay jireen ilaahada waagaas islaamna ma jirin laakiin dadka dhaqan ahaan ayay markaasay carabtu jaahiliyada islaamka kacbada waa la tagi jiray wax badan quraanka soo marnay inka soo isan cibaado ahayn wama kana salatuhum inda albayt illa mukaan wa tasdiyatan wa tawla ilaahi subhanahu wa ta'ala oo cibaado sax ma aysan ahayn laakiin ayaga i'tiqaadkooda inay cibaado sax cibaadeysanayaan ay la ahaaday marka arintaas ayuu markaas oo ninkan kaniisada halkan ka dhiso abraaleyra arintaas uu diidaray kaniisadii markuu saas u dhisay waxa weeye nin oo niman baleera bani kinaana oo carabtaas kamid ahay ayaa arintaas ka xanaaga leeyay ninkan kaniisada weyneynaya xaramki Ilaahayna xaqiraaya ee dadka doonaya inuu kaniisada tan ku xabiso ninkaas ayaa markaas waxa weeye ayaa aad iyo aad uga xanaagay ninkaas bani kinaana nimanka leeyay ka tirsan marka habeen ayuu ina soo dheelmaday oo kaniisadii galay ayuu kaniisadii ku xaaraa leeyay asoo ihaaneynaya markaas uu saqafkeedii xaarki ayuu marmariyay arintaas markay dhacday ninkii Abraha leeyay arintii uu arkay waana loo sheegay wadana waa aragay dhaar wuxuu ku maray markaas inuu kacbada soo dumi doono maadaama kaniisadiisa saas la yeelay wuxuu dhaar ku maray inuu kacbada soo dumiyo baaba ka dhigo meel la isugu tagay ahaaweys Maka ayuu tagay asoo ciidankiisa wato maroodiyaal badan ee maartay maroodigan Maxamuud la yiraahdo ayaa ugu horeeyay markaasi ay u jihaysay inay kacbada dumiyaan ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala shimbirta tana Ilaahay ku soo diray sida hadda Ilaahay noo qisoonayo hadda hadii aan markaasi taariikhdaas iyo say ku dhacday iyo wixii u dambeeyay wax walba waxay mareen intii islaamka taariikh laga qoray hadaan sheegi tagno dhowr casharay noqonaysa laakiin intaas maadaama hadafkeenu uu yahay markaasi inaan alfaadaas quraanka aan fasirno intaas aan uga gaabsanaynaa laakiin qofkii taariikh raba gooniyo markaas u baranaya Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala alam tara soo arki maysid kayfa sida facala rabbuka rabbigaaga oo ku falay bi ashaabil fiili maroodiga ashaabtiisa oo ku falay sida uu ku falana waa sida Ilaahay qas cadeynaya alam yaj'al istifhamta li takhir wa haawi alam yaj'al alla soo kama yeelno Ilaahay kaydum dhagartoodi dhagarta ay wateen oo ahaaday inay kacbadaas ay dumiyaan fi tadliirin khasaara soo Ilaahay kama yeelin khasaara iyo halaag soo kuma dhacay haawi وارسل الله سو مدرن عليهم كركودا دايرن شمبيرو إلهي أبابيلا أو كوحة حق السماء أي كتم ذا لير شمبيرتان ولقي لما أرجع لير واقع سكهر كبعدنا الله مسيء أرجع لير عبد الله بن عباس وهو نبي الكوري عليه الصلاة والسلام حول هاي داير وحي شمبير وحي هذي أو بين السماء والأرض سماء أرض كصعد أو مركز الساعة اسمارت يا الصدور رسايسن ابن عباس وهو هاي وحي إسكال هذي غفور دير اسكال هيدو دحي iyo markaasi waxay iska leeyahay markaasi kafyaal waxay iska leeyahay gacmo oo markaasi ama faro iyo cag ay wax ku qabsato kafkeedu waxa way kafka oo kilaabto kale waxa uu akrama waxa uu dhahay maartay shimbir cagaaran ay heeday oo badda ka soo baxday oo madxaheedu markaasi dugaagto kale ay u yahay markaas ka horna lama arag markaas ka baadina lama arag adu waxa weeye shimbirtaas oo jamaacaadka ayaa Ilaahay ku diray subhanahu wa ta'ala إلهي وهو الله سبحانه وتعالى وأرسل إلهي صومدر عليهم كركودا دايرا شمبيرا إلهي أبا بيلا أو جماعات إلهي سبحانه وتعالى محو إلهي عيدا هيستا مع إلهي أوت هيستا وها عدنا قرانيني وها وذا كبرايا وحي يروح عيدا إلهي جنودا إلهي أيها ديل قدره حتى حيوان كان ديل قدره باب إكرا ترميهم حال أي كوغنى يسود إلهي أما ضيورتا سو ترميهم كوغنى يسود إلهي بحجارة دكحان أو من سجيل روبل بدو حق هذا رصاص واي
naaru jahannama ayaa risaasaas lagu soo kariyaa leeyay waatii waxa leeyay qoomuluud lagu dilaa leeyay halaagoodi markaas waxa weeye sidaas ayaa munaasab u noqotay in ayagana saas la yeelo maxay yeela waxay dooneen kacbada ilaahay inay dumiyaan ibn Abbas waxa uu dhahay dhagaxu markuu ku dhaco mid ayaga kamid ah haragiisa ayuu ka dusayaa markaas waxa weeye horta marka hore waxa weeye qofka koofiga birtaala oo maroodiga saaran koofigaas birta madaxa uga soo dhacaya maroodiga ayuu ku dhacaya inta soo mayl ayuu dhulka markaas u sii gelaya carrada uu sii gelaya xooga uu qabo markaas waa wax shimbir ay soo riday marka hadii ilaahay awood u yeelo saas weeye oo daalimiinta ilaahay oo ku salido tarmiyihim ganayso ilaahay bihijaaratin dhagxaan oo min sijiilin oo bal dubay ah faj'alahum ilaahay soo kama yeeli ka'asfin bal oo kalow ilaahay ma'kuul oo la cunay ka waraqi sar'in way akalatu dawaabu wadaasatu waxa balka markii xoolaha loo dhigo gaar ahaan looda iyo loo dhigay geela waxa caleemanka ka cunaya wixii alantiisa uu cunaya xubnihiisa soo cunaya markaas uu ka bacdi ku joogsanaya meeshii markaas wax ku baabao kala waay saasa ilaahay ka dhigay faj'alahum ilaahay soo kama yeelin ka asfin bal oo kala ilaahay ma'kuun oo la cunay